assalaamu calaykum. Ogow waxyaabaha dhibka badan u soo martay shaqada adagna ay kugu soo qaadatay qof qeyrkaaga waxba uusan ku dhaamin ayaa la wareegi doonaa haddii aad ku kacdid ficilka kaas ah. haddaba muuqaalka ilaa dhammaadka daawo, dadka howshaas ku jirana u sheeg si aan loo qaadinin raasimaalkooda ama waxyaabaha ay jecel yihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله أدبا سلامة وقت إلهي من بركة ووالالكين محمد ومال مهان أتكلم قليلين قد كما سوقلين موقال عسونا مسودين وحار عواها عافمات قوية الحمد لله إذن كان واحد رجينا إنا عافمات قبتين إلهي وقت إلهي من بركة ميلو بعالم كجوكتان موقال كان وحا يوسو دليي دقيقة كهر أيو يوسو دعينا سوجي ديو أيان يدقود بوناتي waxaan isiri maxamed nuur oo muuqaalkan haladaahin u gudbi walaalahaaga muslimiinta meel bay caalamka joogan qaasata walaalahaaga kula afka ah kula luqada ee hadalkaaga iyo waxaad adiga aad dhahayso fahmay run ahaantii ilaahay haydin barakeeyo ama ilaahay hana waafajiyo tawfiiqda qofkeena ma jecla maanta adduunkan joogo waxyaabo asiga uu leeyahay khaas u ah oo asiga tacabkiisa ah ama asiga oo u soo tacbay oo u soo rafaaday dib badan u soo maray inuu qof kale qeyrkiisa ah qaato taasi qof kasto hadii aad weydiiso oo aqli ah oo maskax iyo aqli leh hadaa weydiisid waxyaabaha adiga aan leedahay haday ugu yartahay shay ugu yar haduu yahay qalinka ugu yar hadii aad tiraahdid qalinkaaga asoo sadaqana heen qof si macna la'aan ku qaato ama lacag adiga aan leedahay ama shay adiga aan leedahay oo aad u soo rafaaday dib badan aad u soo martay ma jeceshay hadii aad weydiiso qofka aqli leh wuxuu ku leeyahay maya. sidaa darteed waxaa lanoo sheegay culimada badana ay sheegeen muxaadarada maanta aan dhegeysanayna ay ka mid tahay qaybteeda iyadoo af carabi halka aan kusoo dari doono hadduu ilaahay ka raali noqdo acmaasheena soonkeena salaadeena sadaqadeena xajkeena inteena ugu badan dadka naga midka ah yowmal qiyaama waxaa qaadan doona dad kale sababta kale waa ognahay dad muslimiin ayaa nahay xadiisadaas ama sheekooyinkaas ama muxaadarooyinkaas inaa maqalno waa laga yaabaa laakiin badanaa nafsada iyo shaydaanka ayaana ilowsiya marka digniin waaye fariintan waxaan ka codsanayaa qof kastoo muslim ah walaalka ah kula luuqada inaad gaarsiisid waayo qofka muslimka ah mar walba wuxuu u baahan yahay in wax la soo xasuusiyo qofka gaalkana in dacwada la gaarsiiyo anaga muslimiin ayaa nahay waxaan meeshaan u taaganahay in waxyaabaha khayrka aan xasuusino aan isu sheergalayno xanta qofka walaalka aad xamanaysid ama wax aad ka sheegaysid ama ha ahaado ama been ka sheeg labadaba waa dembi ilaahay subxaanahu wa tacaala raali kama rasuulka subhanahu sallallahu alayhi wasallam uu inoo sheegay walaalka wuxuu yahay hadii aad ka sheegtid waxa la yiri waad xamatay wuxuusan ahayn hadii aad ka sheegtidna waad nasbatay hal majlis ama hal milyar aan soo fadhiisano oon aan yiraahno hiblaayo saas waa ama hibl saas waa ilaahay wuxuu noogu qaadayaa waxa laga yaabaa acmaasheena inaan ku weyno xanta dhedheel maaha ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisana wuxuu ku sheegay ma jeceshiin qof idin ka mid ah walaalkiisa oo meed ah hilibkiisa inuu cuno anagana maanta waxaa meelaha la soo fadhinaa dadka naga mid ahna waxay leeyihiin waxaan idin wadnaa xan fareesh ah subxaanaka ya cadiim xan fareeshaas ka dhaafe waxaa lagu wuxuu yahay hadaa wax ka sheegtid ilaahay raali kama aha dembi weyn ayaa leedahay aakhira yowm alqiyaamana camaashii iyo wixii dhanna asaa la siinaya asaa kaa qaadanaya marka ma jeceshahay salaatuliilka aad soo kacaysa soonka aad soomaysa sadaqada aad baxsanaysa nafsadaada waxay u baahan tahay carruurta ay u baahan yihiin aad sadaqo ku bixinaysa halowdii qofka erkaaga inuu aakhiro yowm alqiyaama kusoo ag istaago oo camaasha hadaas lagu wareejiyo waa maya su-aashaas qof ogolaanaya male bliis iska dayna xanta hiblaayo saas waa hibl intuu ka baxay hibl saasay tahay wax khuraafaad been waxna uusan noo faa'iideynin ayaa isku mashquulina xanta waa dembiga ugu weyn dembiyada waaweyn ayay ka mid tahay marka fadlan aan iska ilaalino nafsadayda iyo nafsadina waxaan ka digayaa inaan iska ilaalino xataa dad qaar waxay ku leeyihin wallahi hibl saas waa istakfirullah uu ku leeyahay istakfirullah maxaa dembigii jaa waa qashay xantii waa qaaday dembigiisa waa qaadatay hebel saas waay wallahi ani ma dhihin laakiin dadka saas dhahooyin dembi waay xan waay marka waxaa ku roon afkaaga inaad ilaalisid fariintan waqtigeedana ma joogin maalmahan aad ayaan u mashquulsanaa insha Allah YouTube-kayga almuxsiniin waxyaabo badan ayaan kusoo biirin rabaa laakiin hadda maaha insha Allah bilooyinkan xogeer restiyaan ka qaadanaa haddii ii suurta gasho insha Allah waxyaabo noocan oo kale oo muhiim ah u arko inay soo boodaan waa idin soo dhigaa insha Allah nafsadeeda iyo tiina waxaan dardaarmaa ilaahay ka cabsigiisa iyo inaan ilaahay daacadiisa aan ku dadaalno fadlan xanta walaalaheenana aan iska joojino
waa aragnaa youtube badan ayaan fiirsadaa aan daawadaa badanaa youtubeyada Soomaaliya waxay ku qaraabtaan oo ay shaqo ka dhigteen ama social media wax ugu badan waa xanta ayaga waxa waa uma walaan xal waxay leeyeen bardo qaar ku dhahay waxa reaction ka bixinaa hibil waxa reaction ka bixinaa laba qofood isfurtay waxa reaction ka bixinaa qof hees soo qaaday waxa reaction ka bixinaa saaysan ha xumaado ama ha samaado dambi ha gala ama yuusan kali adiga xantis dambi ay kugu tahay qof faaxisho la soo istaagay reaction ka bixinaysa xanay kugu tahay please fadlan muuqaalkay kan hala gaarsiyo inta youtuberada walaalaha fadlan walaalayaal waxyaabo kale wax ku raadiya talent kale la imaada risqiga ilaaha baa bixiya view iyo waxyaabo noocaas ha ku raadinina xan iyo been iyo reaction ha ku raadinina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hana ilowina ila ku salsan suubanahina sallallahu alayhi wasallam ilaahay waqtiina idin barkeeyo walaalkan maxamed